السلام عليكم soo dhawaada muuqaalkan waxaanu kaga hadli doonaa marka aad dooranayso shirkadahan maalgeliyaha qofka xirfadlaha forex ah ee loo yaqaan profimiska sidii aad u dooran lahayd shirkada kugu haboon ee ku maalgelinaysa hadhowna aad faa'iido ka heli doontid marka dhowr qodob baan soo qaadan doonaa oo aad iska eegi doontid si shirkada aad ugu kalsoonaatid oo aad ula shaqaysatid marka waayidii dambeeyay waxa soo baxayay shirkado Soomaalidu ay maalgashanaysay oo wax halaale wax ka shaqeeyaan aan la garanaynin kadibna qofka Soomaaliga markuu maal gashaday maalmo wax yar loo soo tuuro kadibna la iskaam gareynayay oo lacagtii uu shaqaystay laga dhacayay marka anigu meesha ugu wanaagsan ee aan oran lahaa Soomaalidu ha maal gashato waxa weeye maal gashi inay sameeyaan maaha Soomaalidu kaliya dadka waa inay bartaan xirfad saraan xirfad forex kale ama sarifka lacagaha qalaado kale hadii ay bartaan qofku xirfadda barto istiraatiijiyad fiican oo profitable ama faa'iido ka soo saari kara oo helo waxa uu sameyn karaa shirkadaha maalgelinta bixiya ayuu akoon weyn ka qaadan karaa kadibna akoonku ku shaqeynaya faa'iidada nasaasa ku kala qaybsanaysaan marka koobaad qodobadaas aynu eegaynaa insha Allah waxaan oran lahaa dadku xirfadda ha bartaan si ay uga baxaan dhicitaankan marka sala dhacayo qodobo ilaa 8 ah ayaan halka ku soo koobay oo aan shirkadda maalgelinta samaysa aan u eego kadibna markay shirkadda aan ku qanco aan asxaabtayda soo gudbiyo ama YouTube ku soo gudbina ama Telegram-ka channel Telegram-ka ee dadka dhowr kun dhaafaya ay inoogu jiraan aan la soo wadaago kadibna qofkii marka diyaar u ah uu akoon ka qaato kadibna uu faa'iido saaka ka sameeyo marka dhowrkan qodob baan u eegaa qodobka koowaad wuxuu leeyahay assets-ka lagu ogol yahay ee aad ku trade gareyn kartid tradable assets-keeda marka shirkadaha way kala duwan yihiin shirkadaha waxaad ka eegaysaa assets-ka ay ku ogol yihiin inaad bixisid ama aad ku shaqaysid ama aad faa'iido ka soo saartid marka badankooda qaar baa waxay sameeyaan forex pairs ama currency pairs oo kaliya ku ogol yihiin qaar equity-ga ilaa iyo la gaarsiiyo qaar ay crypto-da ay ku ogol yihiin marka anigu si ay u kala badan yihiin ayaan u kala doortaa oo tusaale ahaan shirkaddan imika wada shaqaynta naga dhaxaysa ee search trader waxay ogoshahay dhammaan waxyaabaha lagu trade gareyn karo oo dhan way ku ogoshahay kadibna ku trade gareyn kartaa waxaana u helaysaa fursad baad u helaysaa suuqyada adigu aad jeceshahay ama faa'iidooyinka badan soo saaraya inaad ku trade gareysid marka waxaad iska eegaysaa assets-ka ay ku ogol yihiin si aad ugu trade gareysid marka qodobkaas waa qodobka initial balance-ga ama lacagaha ay bixiyaan akoonadooda inta la leeyihiin shirkaddan oo kale search trader loo yaqaano akoonada ay bixiso 25,000 bay ka bilaabmaan ilaa iyo 1 milyan bay gaaraan marka waa aad bay u kala fog yihiin aad bay u kala badan yihiin akoonada ay bixiso marka options badan bay ku siinaysaa haddii ay shirkaddu 3 akoon oo kale bixiso oo yar ama waaweyn qofka dadka qaar baan qaadan karin marka waa inaad adigu option-ka markasta ku balaaran yahay marka shirkaddan waxaan ku jecelahay ama aan ku dooranay waxa weeye options badan bay ku siinaysaa akoonada saa u kala badan bay ku siinaysaa hadaa akoon weyn rabtidna akoonada weyn bad France hadaa akoon yar rabtidna akoonada yar ayaad qaadan doontaa halkan waxay ku sheegayaan profit split-ka ama faa'iidooyinka sida loo kala qaybsanayo marka qodobkana waan u eegaa oo qodob aad u muhiim ah oo shirkaddu haddii aan 2 step marayo waa in faa'iidada aan kala qaybsanayna aan yeesho 80% up to 90% sababtoo 2 step baan maray haddii aan hal step marayana waa inaan qaato faa'iido u dhaxaysa 70% up to 80% marka badanka saasay ayuu ku wanaagsan tahay marka hal step aad maraysid laakiin haddii aad hal step ama aad akoon leeyahay haddii aad qaadaysid profit split-ka waxaan ku jecelahay ama ku dooranaa in 60% up to 65 ilaa 70 aanu gaarsiin karno marka anu shirkaddan inka life account kama bixiso shirkaddani laakiin waxay bixisaa akoono hal step la maro marka waxyaabaha ku dooranay waxa kamid ah profit split-keedu waxa weeye 75% haddana one step la maro marka aad bay profit split-keedu u badan yahay marka qodobada lagu dooran karo ayay ka mid tahay qodobkaasna waa qodob muhiim ah waa inaad ka eegtid shirkadda markaad qaadanaysid akoonad ka qaadanaysid 3 akoon ay kala bixiso 3 akoon ay kala duwan waa in mid waliba ay jirto heer aad ku qaadan kartid salahan haddii akoon 2 step la marayo haday ku yiraahdaan waxaad qaadanaysaa profit split 70% ah wax macquul ah ma
haddii akoon aad one step maraysid sida ay ku yidhahdaan 50% oo qaadanaysa wax macquula maaha xataa 50% macquul maaha marka ka lagu dhiibayo akoonka live-ka ah laakiin way ku qaadan kartaa shirkadaha qaarna way bixiyaan marka 55 ilaa 60 meelaha oo meelaha ugu wanaagsan ee shirkadaha qaar bixiyaan akoon live ah shirkad bixisa oo aan ku qanacno weli maana arkin laakiin imika weli waan ku tala jiraa inaan soo helo insha Allah oo 50% ilaa 70% u dhaxaysa profit split-ka ay bixin doonaan qodobka kale aan rabo inaan halkan sheego waa scaling waxa weeye in akoonkii lagu koriyo akoonka hadda 10% oo kale ku dartay faa'iido ah waa in akoon kale oo ku sii xiga waa in lagu siiyo shirkadaha badankooduna saas ay sameeyaan marka scaling-ka waa inaad badanka ka heshin meesha fees-ka halkan kale funding time waxaan check garaynaa we check it how fast you can get funded marka aad starting aad ku sameysaan profit-ka aad akoonka qaadatid waxaan eegnaa time funding-ka haddii lagala soo raago kale waa caqabad marka waa in shirkadu si automatically email-kaaga isku diiwaan gelisay markiiba ay akoonka funding-ka ama akoonka labada step la maraya ku siiso haddii aad labada akoonka step-ka la marayana iyadana aad ka gudubtid waa in si degdeg ah iyadana ku siiso akoon funding ah si aad faa'iido caadi ah aad u sameysid marka time-kana waan ku xisaabtanaa waanaan eegnaa annagaana soo tijaabinaa marka koobaad qodobka shanaad waa other fees kale in laga qaaday fee-yada waa inaad iska hubisid badanka qaar baa jira monthly fee subscription kaa qaadaya qaarna one time fee weeyaan marka iminka shirkadan search trader oo kale waxa weeye one time fee weeyaan oo wax kale oo dheeraad oo laga qaaday ma jirto waliba shirkaduhuna waxay kusii kala wanaagsan yihiin haddii aad labada step maraysid refundable fee weyn wax yaalaa u jiro oo fee-gii aad bixisay one time-ka ahaa marka labada step aad ka gudubtid waa inay kuu soo celinayaan marka labada step ka gudubsid marka waa marka labada step la marayo laakiin hal step haddii la marayo wax soo celin ah ma jirto haddii akoon live uu yahayna waa inaad iska ilaaliso in monthly fee laga qaado fee billa ah in laga qaado one time fee kaliya ay noqoto faa'iidada bixisina shirkadda la qaybsatid oo 60 ama aad 55 aad qaadatid laakiin monthly fee bil kasta ay ku saaraato oo percentage-ka aad qaadaysa waliba fee laga sii jarto kaasina ma wanaagsana shirkadaha waan kaga tagnaa anagu haddaan waxaa ku aragno qodobka lixaad waa evaluation waa qiimeyntii marka shirkadaha qaar baa jira iska kaa odhanaya haddii aad labada step oo kale ka gudubtid ama halkii step ka gudubtid ay yidhaahdaan waanu eegaynaa dib u qiimeyn baanu ku samaynaynaa sida aad tariidada u gashay iyo waxyaabahaas oo kale marka taana ma aqbalo oo shirkaddu waa inay qodobadii kula heshiisay waa inaan wax hidden rules aanu jirin ama rules qarsoon marka qodobadii kula heshiisay waa inaad ka soo baxdid oo aad target-ka gaadhid oo aad iska ilaalisid daily iyo daily losskii ama maximum losskii oo kale kadibna marka akoonka saa ku gaadhi waa inay iyagoo qodobadaas oo kaliya tixgelinaya waa inay si degdeg ah ku siiyaan akoonkaagii funded-ka ah marka shirkadaha qaar baa jira yidhaahda adigoo labada step ka gudba haddana aanu fadhiisanaynaa oon tariidada dib u raacaynaa tariidada inaad gambling inaad ciyaaraysay ama wax ku nasiibisa inaad tariidada aad ku gelaysay iyo inaad ahayd qof skillskiisu aad u sareeyaan xirfad leh oo tariidada si macquul ah u gelay marka shirkadda aanu kama yeelo waxaanu ka yeelnaa inay qodobadii hore ee meesha kugu qoraa oo kaliya inuu qiimeyntu ay noqoto evaluation marka hidden rules-ka badanka waan iska ilaalinaa waana baadhnaa shirkaddana markaan rules-keeda akhriyayno ayaanu iska eegnaa insha Allah qodobka toddobaad waxa weeye traders review waa dadka traderska ahi fikradaha ay ka bixiyeen marka shirkad kasta oo cusub waa inaad iska ilaalisid waa inaad hadhow tol marka shirkaddii aad heshid dad traders ama Soomaali ah ama dad kale oo ajaanib ah waa inaad eegtid review-ga ay ka bixiyaan shirkadda iyo adeegyadeeda marka anagu waxaan u eegnaa iminka shirkadda search trader oo kale dadkii kusoo shaqeeyey oo shirkadin badan jirtay bay ahayd dadkii kusoo shaqeeyey ayaan reviews-koodii raadinay ama aanu ka helo halkan marka koowaad waxaanu tagnaa halkan loo yaqaano website-kan loo yaqaano Trustpilot website-kan waa website lagu qiimeeyo shirkadaha iyo ganacsiyada marka reviews kasta way aqbashaa waana madax bannaan yahay marka qofka u baahan oo kale in review ka bixiyo oo kale ama review ka ogaado company-ga halkan buu imanaya website-kan buu trustpilot.com ayuu baarayaa kadibna wuxuu imanayaa dashboard-koodan halkanna waad ka dooran kartaa oo shirkadaadu waxay ku saabsan tahay
ayaad halkan kaga dhufsan kartaa sida banks oo kale, travel insurance, car dealer. marka kambaniga halkan bada ama ka dooranaysa waxyaabo khaas u sii uga sii shaqeeyo, ama halkan search ay ku qoran tahay ayaad click siinaysaa, kadibna waad ku qoraysaa kambaniga wuxuu yahay. marka kambaniga search trader oo kale haddii aan ku qorro, anagu hore ayaan ugu qorray, kadibna wuxuu ku soo saarayaa click markii aad siisay search trader faahfaahinteedii oo dhan. marka loogada waad iska ilaalinaysaa shirkadda iyadii tahay. marka shirkadda oo kale waad aragtaa 5 star waxay haysataa 4 star point 5. marka waa wax aad loogu qanci karo, waana verified company. dadka reviews ka bixiyay waa dad badan, konton bay ku dhow yihiin. darajada ay haystaana waa excellence. marka company-ga waa company lagu qanci karo. halkan oo kale hadda usii degtid dadka excellence-ka siiyey waa 85%. grade dadka siiyeyna waxa weeye 9. marka waa company aad la isugu halayn karo. reviews-kan oo dhan waa akhri kartaa, waxaan dadka waxyaabo ay ka qoreen iyo waxyaabaha ay ku arkeen dhammaantood faahfaahinta oo dhan baa halkan ku qoran. marka dadkaas oo dhan baa ayaa ka dhiibtay easy process, great customer service. kan oo kale waa amaanaya qofkan oo kale waa kan verify way leeyahay, waa challenge aad u cadaada. kan oo kale qofkan oo kale waa kan isaguna uu ku qoray great company kan leeyahay. marka faahfaahinta oo dhan oo si akhriis qofka cabashada lan soo gudbiyo oo kale innaka ma garan karto, dadka oo asaas ay karaan akhri karaan. adiguna waad faahfaahinta waad si raacaysaa company-ga waxyaabo laga cabanayo oo dhan baad soo eegi kartaa. marka company-ga search trader halkan waan ka soo qiimeynay. waxyaabaha kale aan ku qiimeynay waxa kamid ah 5 star ayaa horta company kasta loo ogol yahay in la siiyo. marka 3 star uu soo gaaro company-ga waan ka shakinaa, marka baaris badan oo kale loo sameeyay. laakiin hadduu 4 star hadduu soo gaaro ama 5 uu gaaro, waa company aad isku halayn karo oo akoonadana waan ka qaadanaa, akoono badan waan ka qaadanaa. marka dhalinyaradana saasan kula talin lahaa dhammaantood inay shirkadaha iska baaraan. waxaa jira shirkado rules-kooda hadhow talo kugu qabsanaya, Soomaaliduna waa iska degdeg badan tahay ma baadho. marka inaad sidaa qodobadaas aad ku baadhid, qodobadana qofka u baahan waa usoo diraya insha allah iyagoo PDF ah. waana in la iska ilaaliyo kambaniyadan scamska ah ee dadka dhaca. marka waxaan loon lahaa xirfadda barta, xirfadda barta, xirfaddan oo kale forex trader loo yaqaano haddaad baratid oo kale waa xirfaddii ku shaqaysan kartid. maalgelin baa lagu siinayaa akoonada waaweyn ah. waxaa laga yaabaa bil kaliya inaad akoon 100 inta qaadataa 10% aad ku dadto 10,000 ah, kadibna aad 80% qaadatid ama 60%. marka waa xirfad faa'iido badan soo saaraysa. marka xirfadda barta waan dooran lahaa insha allah. shirkaddii akoon live ka bixinaysa insha allah maalin dhow ayaanu soo baaraynaa, waa baaris waan ku wadnaa. qofku aan wax laba step midna aan maraynin ee akoonka si toos ah u qaadan doono. qofka kale u baahan inuu hal step oo kaliya marana shirkaddan search trader qaato. wixii su'aalo qabtaana commenting-ga nagu soo qora ama telegram-yada nagu soo biira. wassalaamu calaykum.